بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي ذا قيمها إيقايها بدن له aan ka wada socono bartan aan youtube-ka ku leeyahay shukri muuse talenti channel mar kale iyo waa walaashin shukri degan oo idiin wada barnaamij cusub asxaabay marka ugu horeysa waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak ramadaan kariim meel walbo aan joogno dunida daafaheeda allah nagu nabad yeelo aafadan iyo xanuunkan socdana allah na hareer mariyo intuu haleelana allah u dhib yareeyo fatahaadaha iyo dhibaatooyinkan laga baqaayana rabbiga daa'inka ahaan ka magan galaynaa isagaan sacabada u hoorsanaynaa allah na hareer mariyo mar walbaba allah na hareer mariyo dadkeena allah badbaadiyo dalkeenana allah badbaadiyo insha Allah taala inta kadib waxaan rabaa barnaamijka aan idin wado in aan guda galo barnaamijkeenan cusub oo kamid ah tiirarka nolosha anagu mar walbaba channelkan wuxuu ka hadlaa arrimaha bulshada waxyaabaha bulshada waxtarka u leh waxyaabaha aan isleenahay life-ka ama nolosha qofka bini aadanka ah ayuu saacidayaa oo hore u wadaayaa waxaan rabaa barnaamijkan aan idinla wadaagayo markan in uu noqdo qorshe la'aan waa la lumaa ama haddaadan qorshe lahayn waad dhumaysaa waxaan rabaa asxaabay inaan ka hadlo qorshuhu sida uu muhiimka ugu yahay qofka bini aadanka ah noloshiisa iyo waxyaabaha uu hiigsanayo oo dhan sida uu muhiimka ugu yahay ayaan rabaa inaan isku tirtirsino annagu waxaan nahay Soomaali haddaan nahay dad badan oo wax qorshaystay oo qorshahoodu u fulay way jiraan laakiin majority-geena ama dhamaan inteena badan marka aan ka hadlo inteena badan ma nihin dad qorshe ma nihin dad inta qorshe jeexda qorshahaas ku dhaqaaqa qorshahaas siday u hirgelin lahaayeen maaragtay ku taxalluqa oo aanan marna qorshahaas dhinac marin ma nihin waxaan nahay dad fara badan oo maxaa la dhihi jiray fara badan markaan leeyahay waxaan ka hadlayaa ra'yiga qofka bini aadanka ah ku jira uu tiro badan yahay oo uunan mowqif gooniya qaadanin oonan go-aan gooniya lahayn oonan qorshe gooniya lahayn oo waagii baryaba gabalkii dhacaba meeshaad ka soo gaarta ka qabo waxaad ka qaban karta ka qabo meeshaad ka soo gaarta ka qabo maahane inteena badani kuma dhaqanno qorshe cad oo noo degan oo aan intaan sii qorshaysanay aan sii ognahay berrito waxaan qabanayaa waxaas toddobaadkan waxaan doonayaa inaan waxaas ka salgaaro qabto oon horta bal bilaabo ugu yaraan bishan waxaas ii qorshaysan sanadkan waxaan qorshaynayaa waxaas inaan qabto ama 3 sano ee soo socota waxaan rabaa inaan bilaabo barnaamij noocaas waxaan rabaa inaan ka salgaaro adiga taqriiban waxa ii qorshaysan 3 sano inaan hadafkayga isku gaaro ma badna dadka noocaas ee Soomaalida ah waxaan u badannahay dad bilaa qorshe iska socda bilaa qorshe iska nool waagi baryaba waxay qabsan karaan qabsadaa meeshay nolosha ka soo gaaraan ka bilaaba halkii ay maaragtay uga dhamaatana oo gabalku uga dhacana ka seexda wax hadafa iyo wax qorshe ah oo ay hiigsanayaan aan lahayn laakiin sidaas ma aha guusha nolosha guusheeda sida lagu hanta sidaas ma aha tubta guusha sida lagu gaaro sidaas ma aha waa inaad qorshe leedahay qorshe dhow mid dheer mid gaaban waqti gaaban kuugu hirgeli kara oo aad isleedahay waqtigaas gaaban aad ku samayn kartaa mid dheer oo barnaamij dhan oo dheer oo adigu aad samaysatay oo hadaf aad leedahay inaad ka miro dhaliso aad rabto
oo aad is leedahay taqriiban ugu yaraan waxaad ku gaari kartaa 2 sano 3 sano 4 sano waa inaad qorshe leedahay marka kugu horeysa waxa noloshaada tubta guusha sidaad ku gaarto waxa noloshaada muhiim u ah inaad tahay qof plan ku socda qof qorshaysan qof aan iska duulin oo meel aanan ogeyn wax uga imaanaya aan ku duulayne maskaxda inta ka shaqaysiiya qorshe degsada ee qorshahaas ku dhaqaaqa ee qorshahaas sidoo uga mira dhalin lahaa falankeeda gala waqti gaaban ha qaadato oo ha qorshaysto waqti gaaban hadduu qorshuhu yahay mid yar iska gaaban ha ahaado waqti aad uga mirin dhalin karto sanado toddobaado bilo adiga sida aad wax u qorshaysato ayay wax kugu hirgeli doonaan haddaad xoogga saarto ilaahayna aad tawakasho for example waxaan rabaa inaan tusaale usoo qaato waxaa tahay hadda aniga iga soo qabo waxaan ahay qof dumar ah Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed ah waan noolahay hadaf baan leeyahay maanta waxa laga yaabaa lacag yaroon haysto inaan wax tabayo aan is leeyahay suuqa tag maanta shopping yar soo samayso oo kii cunada iyo aan ahayn maxaa la dhihi jiray waxaad soo gadataa barfuun ama cadar qofba siduu u yaqaano waxaad soo gadataa unsi waxaad soo gadataa maxaa la dhihi jiray cream jirka la marsado creamkii caadiga ahaa jirka la marsanayay 3 shay 4 shay inaan target garaystaa laga yaabo waxaa soo qabso soo gado ka raalli ahaada asxaabay haddaad qaylo fara badan maqlaysaan waayo xaafadda waa la wada joogaa shutdownkii dadkii ku wada dhacay buuq waa badan yahay dhalinyaradu waa badan tahay ciyaalku waa badan yihiin raalli ahaada marka waxaa dhacaysa maxay ahayday inaad shoppingkaas aado shoppingka markaan aado oo kaleeto waxaa laga yaabaa guriga markaan ka baxay inaan qorsheynayo barfuun deodorant ama diorol cream jirka la marsado maxaa la dhihi jiray cadar unsi adiga 5 shay oo kale inay ii qorshaysneed ama 3 shay ii qorshaysnaa inaan soo gato markaan suuqa tago ayaan waxaan la kulmayaa arrintaas ka duwan waxaan la kulmayaa arrintaas ka duwan arrintaas ka duwan waxay tahay suuqi markaan tagaan ku dhex yabaalaya waxaan arkayaa waxyaabo fara badan oo markaan xaafadda ka soo tagayay aan ku tala gelin inaan sameeyo qorsheyga inay ku jirin oo dhar ka mid yahay oo kreemaad kale ka mid yihiin oo shaambooyin iyo after shaambooyin ay ka mid yihiin waxyaabo fara badan oo cosmetic kale uu ka mid yahay ayaan ku arkaya la dukaan walba waxbuu gadaa suuq hadaad tagto oo inaad shopping garaysata aad rabto wax walba oo caalamka yaalo waad arkaysaa wixii aan arkay oo dhan baa jadwalkii iga bedelay markaasaan leeyahay kana ma qaadataa kaasna ma qaadataa kana ma ka dhacdaa shaambadan waa rabtay kan hebelo waa u baahan tahay alla shaygaana kan ka fiican alla kan amaya wixii aan soo doontay ee baahidayda dhabtaa ay ahayd oon gurigayga uga soo tagay oo dhanba waa iloobayaan meeshay ka baxayaan maxaa booska soo galaya wax aanan shalay aniga aan ku tala gelin markaan soo baxay aan ku tala gelin qorshaha aan iigu jirin oo aan suuqa ku arkay oo ila fiicnaado in isir waxaan waa rabtaa ayaa laga yaabaa inaan wixii aan ku soo baxay ee baahidaydu ahayd oo dhanba inaanan waxba ka qaadin laga yaabaa haddaan wax ka qaadan aan ka kala tago oon 1 iyo 2 ka qaado inta kale aan ka tago oon ku bedelo wax aan marka hore qorshaha iigu jirin aanan ku soo tala gelin oonan dartood suuqa u soo aadin oon suuqa uun kula kulmay laga yaabaa inaan gurtoon qaato maxay ahayd aan gurubsado baahidayda dhabtaa waxay ahaayeen guriga looga baahnay aniga aan u baahnayna inaanan qaadinna laga yaabaa lacagtii aan ku beer dareeyo waxaan shalaba markii horeba anigu aan soo qorshaysan oonan ku tala gelin aan gurto taas maxay keenaysaa dhaqaalahayga uma roona wixii aan u baahnay waxaan ahayn aan daldashtoon qaatay wixii aan u baahnaana oo aan u soo muraado gurigayga markaan kasoo tagay aan u soo muraadana waa ka tegey maxaan faa'iiday waxba ma faa'iidin taas maxay ku dhacaysaa inaadan marka hore qorsho lahayn oodan waxba sii qorshaysanin
oo balaan kuu degan jirin oo waxa u baahan tahay waxaadan u baahnayn aadan marka hore aynu ku kala baxsanayn ayay taas ku imaan kartaa laakiin laba shay shaambo iyo after shaambo inaan soo gato markaan gurigayga uga soo baxay oo baahida dhabta ahoo markaas waxaan u baahanahay ay labada shay ahaayeen haddaan lacag kasta haysto suuqa markaan imaado waa inaan labada shay dhab iyo dhab soo dhahaa anoon dhinac kala fiirinin waa tusaalaan ka soo qaadanayaa tusaale gaaban oo weliba aad basiid u ah aad u jilicsan waaye oo wax kasta aan tusaale u noqon karin ma garatay labadaada shay soo qaado gurigaaga ku soo noqo 5 shay haddii qorshahaagu ahaa markaa bixaysay 5taada shay soo qaado gurigaaga ku soo noqo wixii kale suuqa ku soo aragtay oo istiri Allah ilaahay waxaan waa u baahan tahay mar kale qorshayso qorshaha dambe iyo adeega dambe oo suuqa u aadaysa ha kuugu jiraan laakiin kan wixii aad ku soo tala gashay suuqa ka soo qabso ha ku indhawaloonin ha ku yabaalin waxaan dadku meesha soo dhigtay beeca u rabaan adigu ha gurbin adoon u baahnayn baahidaada ka soco wixii aad u baahnayd oo qorshihii aad ku soo baxday baahidaadu intay la ekeed kaliya ka soo qaado suuqa marka tagto ee waxa suuqa yaalo dhan kana waa rabaa ay kugu noqonin qorshe yeelo markaaga hore soo baxayso suuqa soo aadayso qorshe ku soo bax qorshahaas aad ku soo baxday suuqa ku gal ugana bax haddaadan qorshe lahaynin oo noloshaadu ayna kuu qorshaysnaynin oo waxaa rabta iyo waxaadan rabin aadan kala aqoonin oo waxa maxay ahaday qaybta koowaad iyo qaybta labaad step 1 step 2 step 3 noloshaadu ayna kugu kala samaysnayn oo waxa ugu horeeyo markaas aad u baahan tahay ama inaad ku dhaqaaqdo ay tahay aadan ogeyn oo qorshaha ugu horeeyo inaad talaabada aad qaado ay tahay aadan ogeynin waxa waaye 10 talaabood isku kor furaysaa midaad dhameystiraysan ma leh ama waxaadan u baahnayn aad samaynaysaa wixii aad u baahnaydna waad ka tagaysaa marka noloshu muhiim bay u tahay waa tiir horumarka nolosha kow ka ah tubtaada guusha kow ka noqonaya marka ugu horeysa inaad qorshe yeelato noloshaadu inay qorshe ku dhisnaato waxaad doonaysa iyo waxaadan doonayn inay ku kala baxsan yihiin waxaad maanta rabto iyo waxaad berri ama bisha dambe ka dhiganayso inaad kala taqaano ayna isaga kaa darnayn oo waxaad maanta rabtay adoon samaynin waxaad bisha dambe samayn kartay ama aad bisha dambe u baahnayd aadan maanta soo samaynin oodan soo hormarinin oo waxaad maanta u baahnaydna aadan dib uga dhicin daawadayaashayda asxaabtayda quruxda badan leh ee aan bartan YouTube-ka ku wada kulanno halkan igala socda daawashadiina aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo dhiirigelintiina soo dhawaada intaan hore iila soconin oo igu cusubna waxaan idin leeyahay subscribe-ka saarta si barnaamijyadu mar walba idinkuugu soo dhacaan dhiirigelintiinuna mar walba waa noo muhiim kulankeena kulan khayraad tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida aan ku kulmi doonno asxaabay waxaan idinkaga tegayaa nabadiinada ee baha ahaato korkiina nabad iyo caano السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.